kulanti waxaan wanaagsan dadkana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa studio-heena magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ku soo dhawaada mar kale ee barnaamijyadeennii qiimaynta qodobkeena ama xubinteena maanta ayaa waxaanu si gaar ah ugu eegaynaa kuna soo qaadan doonaa doorashooyinka Somaliland ee nagu soo fool leh sanadka 2017 doorashooyinkaasi ayaa hore loo baajiyay oo ay dhici waayeen ilaa iyo ugu yaraantii 2 jeer waxaana haatan la hadlayaa in la kala qaado doorashooyinka golaha deegaanka iyo waliba tan madaxweynaha Somaliland ayaa hore u soo gashay ilaa iyo 3 doorasho inta la og yahay waxayna kala ahaayeen doorashadii madaxweynenimo ee sanadkii 2003 oo markaasi ay ka qayb galeen dad gaaray 488 oo qof golaha deegaanka ayaa iyana markaasi doorashooyinkooda ay dhaceen sanadkii 2005 waxaana markaasi codeeyay oo ka qayb galay ilaa iyo 670 oo qof doorashadii kale ee madaxweynenimada ugu dambeysay ayaa iyaduna dhacday sanadkii 2010 waxaana ka qayb galay ilaa iyo 538 oo qof tiradaasi dadka ayaa waxa lagu qiyaasaa in marka loo eego dadweynaha reer Somaliland ay gaarayaan 20% ama 20% dadka ku nool Somaliland tiradaasi oo ah tiro aad runtii u yar si kastaba ha noqotee sidee u dhici kartaa doorashooyinka soo socda maxaa la rajaynayaa mustaqbalka ma dib u dhici doonaan ma waxay u dhici doonaan waqtigii loogu talagalay sidee loogu diyaar garoobayaa maxaa kharasha oo ku baxay dadku tababar inta leeg bay qabaan sideese looga fogaan karayaa in lagu shubto ama wax la kala xado si kastaba ha noqotee ku soo dhawaada mar kale iyo Martin oo inoo balbalaariya barnaamijkaasi ku soo dhawaada mar kale studio-heena waa mahadsantahay cali waa hagaag Martin aan guda galno su'aalaheena okay markuu horeysa waxaan ka bilaabi doonaa bal markuu horeysa si dadweynaha in la daawanaya ay uga qaataan qadar fakara muhiimadda ay doorashooyinku leeyihiin muhiimadda calaw doorashadu leedahay waa aad iyo aad bay muhiim u tahay horta waxaan doonayaa marka hore inaan isla garanno Somaliland muddo laga joogo 20 sanadood inay ku guuleysatay marar badan inay qabato election ama doorashooyin badan oo isdaba jooga marka laga bilaabo 2003 ilaa imika international community-gu had iyo jeer arrinta aad bay u eegtay waxaan isku wada raacin inay Somaliland marar badan qabatay wixii loo jeeday fair and free election ha iska jiraan waxyaabo yar oo caqabada oo jira laakiin inta badan calaw muranada noocaasi oo xagga ka yimaada doorashooyinka wali wadankeena kama dhicin haddii aan ku soo noqdo qodobkii ah electionku muxuu leeyahay faa'iido wadanka horta guud ahaan waxa weeye waa markii chance umada la siiyay ee bedel lahayn power amba government markaas iyagoo aan raali ka ahayn oo markii ay chance u heli lahayn haday dawladda jecel yihiin inay soo celin lahayn isla markaa marka horta ahmiyadii la oran jiray in la bedelo powerka wadanka horta guud ahaan muhiim bay u tahay electionku inay dadku ka turjumaan civic engagement codkoodii ay bixin lahaayeen in iyagana sameeyaan waa muhiim waxa kale oo adduunka u furtaa doorashadu wixii la oran jiray maalgashi iyo investment wadankana waxay galisaa wixii la oran jiray aamin iyo trust iyo stability marka muhiimadda ugu weyn doorashadu waa waxaas oo dhan waa doorashadu waa sida biyuhu ku yihiin nolosha marka doorashadu calaw aad iyo aad bay muhiimadda ay leedahay in isbedel uu yimaado maxaa oranay muhiimaddaasi waa ta ugu weyn markii doorashooyin la galo waxaa jira qofku wuxuu leeyahay rights amba citizenship rights ka ugu weyn qofku haystana waxa weeye maalintii la dooranayo qof inuu kaarkiisa dhiibto oo uu sheego qofku amba leaderka amba dawladda amba systemka amba hogaaminta noocaasa ee uu qofkaas raali ka yahay inuu sheego waana arrinta kaliya ee keeni karta inay ummaddu ku wada noolaato wanaag iyo is-ixtiraam iyo daacad iyo wax wada qaybsi marka wax ka qaalisan arrinta doorashada calaw ma jirto ee wadan sameeya Somaliland dad inta leeg baa xaq u leh inay codeeyaan ama 100% intay noqon karaan dadka codeeya dadka imika horta codeeya calaw waa dad sidii aad sheegtay 20% waa tiro aad iyo aad u yar inkastoo tirada aynu doonay muhiimadda dadku inay ogaadaan sababta keentay arrintaas waxa weeyaan populationka adduunka markay yihiin dad u daacada wadanka ama dad fahansan qoomiyadaasi freedomka iyo xorriyadda iyo doorashadu waxay tahay
waa inuu numberkaasi kor uga kacay ilaa 50% inaga wadankeena numberkaasi aad iyo aad buu sareeya marka 20% ka 20kii sanadood u dambeeyay calaw muu kicin waana number weyn ugu haya waa wuxuu la xiriira mustaqbalka dambe ee Soomaaliland laakiin waa number la tixraacin karo maamuladii iyo tayadii iyo dawladihii wadanka gacanta ku dhagay oo dadka u tareen garaynin muhiimadda foodka iyo codbixintu waxay tahay codbixintu waa sida referendumka oo kale waxay ka turjumaantaa wadan jacayl waxay ka turjumaantaa dadka aqoontiisa iyo sida u jecel yihiin inay dawladaha wax bedelaan marka numberkaas uu yaray laakiin waxaan jecelahay in la kobciyo mustaqbalka iyana waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal muhiimadda ay leedahay guddiga doorashooyinka ama commissionerku waxa weeyaan waa gatekeeper waa wixii sugi lahaa in wax fair uu dhaco wax xalaal oo lagu wada kalsoon yahay marka iyaga laftigooda waxay leeyihiin due process badan haddana soo qaadno calaw marar badan meelahay magaranaysa wax ka iman karaan haddii fraud dhaco haddii magaranaysa diiwaangelinta kale hadal ka yimaado haddii magaranaysa marka waxyaabo badan baa looga baahan yahay qabtaan waa in system sugan sameeyaan waa in system codbixiyaashu daacad yihiin amaana tirakoobka hadhowta haddii khilaaf yimaado sidii loo kala baxayay maamulkii iyo administrationkii calaw waa in waxaas oo dhan nimanka commissioner ka shaqeeyaan waa in sidoo kale ka madax banaan yihiin dawladda iyo wixii loo oran jiray primary in lacag hoosta laga siiyo waa inay dad ka madax banaan yihiin xaqii qabaylka oo garan karaya wadankii ahmiyadda ay doorashadu u leedahay magaranaysa wadanka marka electoral nimanka commissionerki waa qayb dhan ugu muhiimsan wadanka awoodinta la eegbilayn marka oo ay decision ama go'aan ku gaari karaan haddii caqabad ka hortimaado taynu sugana waxa way inay noqdaan horta free entity waa inay noqdaan hay'ad madax banaan oo ka madax banaan xisbiyada mucaaradka iyo dawladda hadda wali maynaan deeqeexin oo groupkan waa group cusub inkastoo Soomaaliland aanay samaynin group taxana u jooga meesha oo hadii jeer ka shaqeeya commissionerka nimankan waa niman la badbedelayo laakiin iyaga laftigooda waxay u baahan inay noqdaan niman adag oo arintan si maaratay wanaagsan u gala hawshaas waxa su'aal la iska weydiin karaya guddiga doorashooyinku marka la soo xulay ugu horeysaba xisbiga kulmiye qayb uu soo dirsanaya xisbiyada mucaaradka qayb bay soo dirsanayaan guurtidu qayb bay soo dirsanayaan dadka marka la isku dardaro in kastoo tiradooda ha gaadhe sidee bay haddana uga madax bannaanaanayaan dadkii soo diray oo qaarkood dawladda ay ka tirsan yihiin horta waa su'aal wanaagsan oo inta badan waxaad moodaa in electoral commissionerska laftigooda ay yihiin xisbiyadii oo meesha ku loolamaya historically waxa dhici jiray marka qaarkood in laaluus lagu kala qaato xagga marka electionka la sameeyo imika waxaanu doonaynaa in taa la soo afjaro laakiin waxay ahayd in baadhigaasi marka ugu horeysaba ka madax bannaanaado xisbiyada mucaaradka iyo dawladda labadaba wuxuu ahaa eeg meesha waxaan doonaa calaw in markasta sameeyno wixii la oran jiray institutional memory inay xusuus qor ka tagto groupba markii group bedelo calaw xusuus badan heli maayaan system ma ka dhaxal maayaan marka markasta la bedelo calaw dhibkeeda leedahay laakiin imika si aad u sheegtay xisbiyada ku magacaabay in meesha laftigooda calaw arrin riskigeeda leh weeyaan maxaa caqabado ka hor iman kara guddiga doorashooyinka waxa ka iman kara waxyaabo badan waxa ka iman kara marka la eego technicalka oo kale xagga waxaan isticmaalayaan systemkan horta wuxuu ku xidhan yahay hay'ado iyaga laftigooda ganacsatada ah sida Telesom iyo Somtel waxa waa system dependent ku ah electronically amba system online dependent ku ah mooyee marka we don't know business influence ku meesha wuxuu ka keeni karo taasi waa issue anigu aan arkayo waxaan kala arkaynaa wixii la oran jiray media issue-giisa dib u keeni kara waxaan kala arki karnaa wixii la oran jiray double counting iyaga laftigooda laga taxadiro iyo waxyaabo badan oo in la kala qaato sida imika anigu aan dhacdada ku hayo nimankan waa niman dhisan oo runtii training badan leh laakiin ma aan arag inay weli ka madax banaan yihiin dawladda waayo waxa weeye laba jeer baa dawladda imika dib loo dhigay ma garanaysaa arrimahan diiwaangali arrimahan election inuu dhaco niman laakiin aad iyo aad dawladda uga hor yimi oo adagna ma ahayn aynu eegno inkastoo anigu aan xogaal u ahay ama aan hoos u ogahay haddaba dadka ku daawanaya qaarkood oo aan la socon sida waxu jiraan yaa tartamaya waxaa tartamaya dee saddex xisbi aanu garanayno traditional waa kulmiye iyo ucid iyo wadani inkastoo tartanka anigu aan doonaya inaanu heer kala gaadhsiino tartanka waxaan jeclay inuu aanu ahaan xisbiyo qura ee uu ahaado horta ideology amba noqdo policy issues amba wax wadanka wax ka bedeli karo mustaqbalka saadaal cusub iyo hoggaan cusub iyo direction cusub keeni kara laakiin hadda waxa tartamaya waa saddex xisbi aanu naqaanay leadership weyn oo cusub oo magaranaysa innovation leadership amba hogaamin cusub oo meesha taala horta calaw ma jirto laakiin waa xisbiyadii aanu naqaanay ayuunbaa meesha ku tartamaya ma jirtaa cid madax bannaani u ordi karta ama u tartami karta waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan oo aan jeclayn inuu si gaara u gallo oo independent political party imika wadanku wuxuu ku jiraa waa la xidhay systemka
ummadana waxaa laga dhaadhiciyey amba loo sheegay inaan political party dambe la furi karin muddo 10 sannadood ah marka hadda wali waqti baa haray cidina ma furi karto waxyaabaha keeni kara in political party mustaqbalka la furana waxa weeye markii systemkii amba political party aanu ku dhisnayn ideology amba policy economical amba investment amba natural issue marka aanu meesha oolin ay xisbiyadu noqdaan personality nin la yaqaano la tartamay cala waxa imanaysa in marka dadku ay dhawtay iyaga laftigooda ayahooda ka tashadaan isku dayaan in xisbiya kala furtaan dadka u tartamaya jagooyinka ay kamid yihiin jagada madaxweynenimada oo kale dadka reer Soomaaliland ama shacabka reer Soomaaliland ma u simeeyeen in ay xaq u leeyihiin in cid walba u tartami karto ama u ordi karto madaxweynenimo si qabaa'il iyo dad gooniya iskale positionkaas oo iyagu u tartami kara horta markii xisbiyada ay tade wayna ognahay xisbiyadu waxay ku dhisan yihiin inta badan waxa weeyaan qabiilku waa laf dhabar qabiilkaas oo inta badan isaga laftigiisu aynu gaar u qaadi doono mustaqbalka sidoo yahay waa halkii la oran jiray halkan waa foundational support waa laf dhabartii weeye moogtay marka aad iyo jeer wali maynaan arag inkastoo Soomaaliland marar hore ay sameysay inay ka yar gudubto xaggii qabiilka laakiin haddana waa arrin horta la dhamaanteen election kana qayb libax la kama doorashooyinka hadda ugu dambeeyay abaabulkoodii dhinaca diiwaangelinta oo kale markaan eegno waxa jira gobollo aan xasiloonayn xagga nabadgelyada haddana afka ku dhufano sida Sool iyo Sanaag oo kale xogaa muran ka taagan yahay dadka qaarna ay diidayeen in codayaan qaarna in la diiwaan geliyo ay diidayeen guddiga doorashooyinku waxay geysay sanaadiiq gobolada Sanaag oo kale iyo Sool qayb ka mid ah haddana tusaale soo qaadano dawladdu waxay sheegtay in dhammaan goobihii gobolka Sanaag oo kale si gaar ah laga codeynayay ama la iska diiwaan gelinayay la geeyay sanaadiiqdii diiwaan gelinta oo la diiwaan geliyay barasaabka gobolka Sanaag Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa isaguna mar hadlay waxa uu sheegay in dawladdu ay been sheegayso oo gobolka Eergaabo oo kale aan laga coday aan la iska diiwaan gelin oo la doonayo marka dawladdu inay iska marsato oo xaqii gobolkaasi ay been ka sheegtay ku shubato oo kale hadal aan ka soo kala marka iskhilaaf ka yimaado diiwaan gelintii oo bilowgiya maxaa lagu gaari karaaba codayn horta su'aashaasi waxa la xiriirtaa su'aashii loo jeedo national interest waxa weeyaan horta gobolkan Sanaag waa gobolkeeni Laasxanood iyo Soolna waa dalkeeni inay ka dhacdo horta election waa aad iyo aad muhiim u tahay adigana mustaqbalkaaga muhiim bay tahay anigana mustaqbalkayga u tahay waa inaan uga dhacdo si xalaal oo xor ay dadkaasi siday u rabeena inay u dhacdo waa muhiim sanaaduuqda in la geeyo iyaguna ay qaataan horta cala waa muhiim waxaan doonaa programka inuu naga faa'iideysano national identity haddii aynu sameeyno oo inuu isku mustaqbal lahay isku dadnahay isku degaan nahay waxa weeyaan codkeena guud amba aqlabiyadeena guud ee ka turjumaysa inaynu codayno mustaqbalka wax weyn ba ka taraysa bari iyo maantaba population ahaan wax bay nooga taraysaa investment ahaan wax bay nooga tagaysaa iyo xagga maalgashi dad ahaan iyo walaaltin wax bay nooga taraysaa marka horta anigu waxaan ku dhiirin lahaa ummadda inay horta fahanto wacyiga guud ee electionka dhammaanteen inuu leeyahay marka waxaan jeclaan inta muranka laga saaro in arrimaha noocaasa laga shaqeeyo tan kale arrintan imika gobolada dee aanay weligeed historically uga dhici jirin sida Sool oo kale Sool imika fursad weyn ayaa horta u taala hadii dee arrinkan khaatumo uu hagaago inkastoo aan jecelahay iyaga laftigooda inay siyaasad midaysan imika la yimaadaan oo laftigooda hadii xisbiyada la furo ay fursad imika heli karaan inay xisbi iyagu ay leeyihiin mustaqbalka laftigooda ay samaystaan waxa jirta dhinaca haweenka oo kale haddii eegno Soomaaliland 60% baa odeeya haddana cidda tartan ku lagu yeelata ama positionada u tartama dhinaca haweenka waa 2% waa maxay sababta haweenka dhinacooda loo eegi waayay oo inta badan ay raggu sadbursi ku sameeyaan horta runtii waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad u important calaw muhiimku waxa weeyaan xagga haweenku waynu ka dhisana markay noqoto electionka 60% baa lagu qiyaasay dadka footeeyay inay yihiin haddana marka la eego xagga xildhibaanada iyo xagga madaxda sare ee wadanka aad iyo aad ayay tarantoodu u yartahay waana arrin كوني كرت ديمقراطية دينا دبوين كوكيني كرت هذين نقطة حاجة دونك يا هذين نقطة حاجة ينقع رميهنا ولا نولاشة مركا عرنت عشان وحوي وحيل لورنشري educational civic engagement ما يسمين الدولة يعني ما كان commissioner كلا وضع بدنا ما يسمين إن يدرك تصان أهمية الدمر كله يهين إن كقيم قاطان leadership كودن كيهرمود كودن سيد الدنيا ذوكله عرنت عشان على وارين مهمة وطبعا إن هالكذا لقاه الله مصطفى سيد بيا بحيا خرجك خرجكو election وحين نجيم هذا لبا قبض بنجيم هذا وحين نجيم هذا هرت مدوات international community قوي مكلفت جدو حلس كوتشر تحدي لبا أنا كلا قاعدة دورشوا من نوع الدولة بحسه من أنت بنوع حابة بحيدات كرهيلها قبائل كحسبية
ku dhagan marka waa saddex lacagood midna reeruhu xisbigooda ku taageeraan midna international community-ga iyo ta dawladda inkastoo labaduba imika challenge badan ay horta jiraan waayahay waxaan eegaynaa dhinaca sababta waa maxaa ku jira in la kala qaado golaha deegaanka doorashadiisa iyo tan madaxweynaha iyana isku mar dhacaan farqa u dhaxeeya maxaa ku jira meesha waxa ku jira waxa weeyaan markii anigu aan arrinta dib u baaray midna waxay faa'iido u tahay dawladda iyo hoggaanka hadda wadanka gacanta ku haya midna waxay u tahay faa'iido xisbiyada mucaaradka waxaana isugu biyeeshanaysaa waa arrinkii markii dhibaatada sheegtay waa dhaqaale waxa weeyaan mar haddii la kala qaado xisbiyada iyo haddii la kala qaado xildhibaanada iyo madaxweynaha waxa badnaanaysa hadii jeer kharashaadkii dadka xildhibaanada ay mar labaad haddana ku imanayeen ay dadkooda support dadkii maganaysa iyaga taageerayay ku keeni lahaayeen diiwaangelinta iyo electionka marka waa hab kharash oo markaa dawladdu ay ka jeeb badan tahay xisbiyada mucaaradka markaas taasina hadday suurto gasho waa hab kaloo keeni kara in dimuqraadiyaddii hoos loo riday international community laftigooduna dhaqaalihii ayna siin jiraan dib inooga noqdaan marka halisteeday leedahay Mr. Martin haatan waxaanu eegi doonaa bal dhinaca media aad iyo saxaafadda ama warbaahinta waxaa gacanta ku haysa dawladda oo campaignki ama ololihii doorashooyinka idaacaddii waxay taageersan tahay dawladda gacanta ku haysa telefishinadii dawladda gacanta ku haysa jaraa'idka badankooda gacanta ku haysa dawladda gacanta ku haysa marka xisbiyadii mucaaradka sidee bay dawladdii ay ula tartami karayaan haddaan haysanba meel ay ka hadlaan horta waxaynu u baahannahay wixii la odhan jiray imika waxaynu haysanaa waa government media waa mediahii oo dhan dawladda ayaa gacanta ku haya haddaad eegto TV-gan la yidhahdo national somaliland qaran TV-gana inta badan dadku isku si ugama hadlaan isku si ugama soo baxaan xisbiyada mucaaradka way ku yar tahay waqtiga ay ka soo bixi lahaayeen waqti badan lama siiyo waxaa kaloo jira mararka qaarkood in dee nimankii journalistaantahaba la xidho shalay oo u dambeysay waxaynu arkaynay nin lagu xidhay magaalada burco oo caana oo la odhan jiray Kayse Axmed Digaale anagu aan isku kala asahayn oo runtii hadii wariye caana siyaabihii loo xidhayna siyaabo maaragtay aan ku jirin akhlaaqiyadka dawladda ayaa ahayd marka waxa weeye horta free media wadankeena inta badan kama jiro waxa kaloo jira iyaga xisbiyada mucaaradka laftigooda aan aqoon u lahayn sidii loo isticmaal lahaa wixii loo jiray free access media oo ahayd in international community-ga iyo la kaashadaan dawladda laftigooda inay helaan in ku filan oo xagga media xilliga iyo magaranaysa afkaarta noocaasana ay ka qayb qaataan hatta telefishinada sida gaarka loo leeyahay ayaa iyaga qaarkood ay xukuumaddu si indirect u isticmaashaa waxaan soo qaadan karnaa television hawada ku cusub oo dhawaanahan aad loo daawanayo la yiraahdo Star TV ayaa isaguna soo saaray in nin hadda aan doonayn magaciisa aan magacaabo oo kamid ah siyaasiyiinta reer Somaliland in aanu ka hadli karin ama laga wareysan karin televisionkaas marka saxaafadda reer Somaliland oo kale sida dawladdu isticmaalayso miyaan ahayn nooc aburisa oo cadaadis xoog leh u saaray aad iyo aad horta waxa weeyaan calaamadaha dictatorshipka amba society-gaas inuu dimuqraadiyadda ka tagay meesha ugu weyn adduunka laga qaxay horta waxa xagga media waxa weeyaan calow inaga laftigeenu intaanu programskan bilownay waxaa jira waxyaabo badan oo aniga laftigayga aan la kulmay oo dad badan oo ka hadlaya programskeena siyaabaha waa xor dadku inuu ka hadlaan programska adduunkuna isku idea maaha laakiin adduunka waxa ugu daran inaad caburiso bini'aadanka hadduu a nation amba system of government ummadiisa caburiyo waxa weeyaan waa calaamadaha lagu garto in wadankaasi dictatorship amba maamul wixii la odhan jiray centralist wadankaa ka jiro marka free fair election waxay ku xidhan tahay waxa la odhan jiray free media waa muhiim arrintaas marka laga soo bilaabo 1991 oo ahayd waqtigii Somaliland ay ku dhawaaqday in gooni isu taagtay oo ka go'day wadanka Soomaaliya Martin Star la socono siyaasadda Somaliland waxa u loolamayay oo u tartamayay oo isu sharaxay mar kasta dad macruufa oo la wada garanayay aad iyo weli waxay hortaagan geedi iyo geelle iyo wafa oo ordaya oo maxay sababta dad gaarun ay ordayaan ilaa xilliga ilaa hadda waxa weeyaan horta number 1 waxa jira wixii la oran jiray personality issue halkan wadanka waa personality leadership inagu wadamadeena ama dalkeena ama xisbiyadeena kuma inaan tayin xisbiya tayale oo bolosiga iyo dadka wax ka bedeliya deegaanka waxaanu inta badan tayina waa nin reerkeena amba nin la yaqaano marka nimankan imika wada ordaya marka laga reebo Jamaal Cali Xuseen waa nimankii 20 sano u dambeeyay dawladda inuu la jiray marka waa personality issue dadku ma kala dooranayaan xisbi iyo wax soo saar iyo waxba toona ma kala dooranayaan waxa kala dooranayaan waa personality iyo ninka reerkooda marka arrintaasna waa arrin dimuqraadiyadda ku keeni karta halis waa arrinta Somaliland imika hortaagan waa arrin aan doonayno ka hadlo new leadership inaanu ka samayno chance-ka qura imika anigu arkay wadanka aan islaada new leadership ayaa ku soo biray ugu dhawaa horta waxa ninka Jamaal Cali Xuseen la yiraahdo hadda siyaasadda ku cusub oo ka turjumaya runtii
aragti cusub oo hadda la bilaabi karo isagana hadda qeyr wuxuu ku jiraa in magaranaysa la soo rajo gooyo marka arrimahaas oo dhimacada way jiraan waxa jirta wadamada ay jaarka yihiin Soomaaliland kale ayaan tusaale soo qaadan doonaa Djibouti haddii aad tagtid golaha wasiirada haddaad u fiirsatid waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah haddii aad tagtid Jigjiga DDSI maamul dawladda deegaanka Soomaalida wasiiradooda haddaad tagtid waa niman aad u yar oo dhalinyaro ah Soomaaliland wax moodaa inuu ka maqan yahay doorkaas ama kaalintaas in dhalinyaradu ay helaan position wanaagsan oo iyagoo markaa the new plan dhiig cusub ku soo kordhin karaya wadankii fakar cusub ku keeni karaya aad iyo aad aan weli caajisin aan weli noqon dad maaragtay xoogaa yara hawlgaba waa maxay sababta doorka dhalinyaradu ay weli aan uga muuqan Soomaaliland waa su'aal runtii aad iyo aad u wanaagsan horta Soomaaliland waxa uu kacay dad aad iyo aad u badan oo dhalinyaro wax bartay aqoon leh xirfadna leh systemkan political iyo policy maker kana labadaba ka bixi kara laakiin runtii waa saad u sheegtay way ku yariyeen anigu markaan eegay arinta hortaagan aad iyo jeer waxa weeyaan arin traditional dhaqankiya iyo mid dhaqaale insha Allah waana laga gudbi doonaa waana waxyaabaha iyada laftigeeda hortaagan horumarka iyo dimuqraadiyadda wadanka Soomaaliland marka kulay waa waxaan doonayay inay magaranayso solution ka soo gaaro waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Martin oo kaalinta opposition mucaaradka kaalinta mucaaradku aragtidooda iyo waa sidee dhaqdhaqaaqooda xagga doorashooyinka marka loo eego horta doorashooyinka runtii markaad eegto dhaqdhaqaaqa imika ugu weyn ee oppositionka horta waa xisbigan wadani meelo badan runtii ka habsaamay waxay labada jeer horta arrintan diiwaangelinta dib u dhacday qayb weyn ayuu xisbigaasi ka ahayn arrintaas dib u dhacdo waayo waxa loo baahnaa wixii la oran jiray unified force ummadda badankeedu waxay raacsan tahay waa xisbiga leeyahay wadani oo aqlabiyad guud oo mucaaradnimo haysto laakiin madaxda xisbigu arrinta kama turjumin waana waxyaabaha keenay kartay in dawladdu markasta si cagajido calaw muhiimadu waxa weyn wadanku hadaan lahayn opposition political party adag forceful ka turjuma rajada iyo ummadda inay waxay rabto waxa weeyaan dibkeeda leedahay waxyaalaha keeni kara inay dib u dhacdo waxaana ka baqaya calaw mararka qaarkood arrintaas haddii xitaa diiwaangelinta ma haddii election fraud yimaado oo la isku qabsado in xisbiyada mucaaradku laftigoodu ay noqdaan kuwa ugu horeeya ee concede amba aqbalaba in arrintaasi aan ahayn arrin inay tahay arrin sax aan ku celiyo halkaas waxaana wada hadii muran siyaasadeed ka yimaado electionka oo la isku qabsado waxa dhici karta madaxda xisbiyada mucaaradka laftigooda inay laaluush qaataan oo ay ku raacaan dawladda wax aqliyaan oo ay ka tagaan dadkay markaa iyagu supporterskooda waana arrin laftigooda dimuqraadiyadda halis keeni karta waana arrin wadanka damage gareyn karta waxa la mucaaradkii ba isu bedeli karaa xisbiga taladahay waana arkana sasaankeedii waana waxyaabaha ka dhici kara wadankeena inaynu aragno niman liidarisa oo xisbiyada mucaaradka oo dawladda si toos ugu shaqeynaya wahagaag inuu gabagabada barnaamijkeena ku dhow marka warsan ku weydiiyo mustaqbalka maxaad leedahay doorashooyinka soo socda ee Soomaaliland ee 2017 ka dhici doona xilligooda ma dhici doonaan sidee soo dhici doonaan horta runtii warwar weyn baa aniga iga haya ugu darnaata arrintan dee lacagtan ee soo dhexdhiga DB ka timid Dubai keeni karta risk weyn oo aynu ku dagaalano mustaqbalka cidda guuleysan doonta arrinta markaan eega xisbiyada mucaaradka oo mucaaradnimada xagga xisbiyada laftigooda madaxda sare ay aad u liidata laftigooda rajo aad u xun ay calawga haysa laakiin waxaan had iyo jeer markaan dib ugu noqdo taariikhda Soomaaliland marar badan waxa jiray laga rajo gooyay oo magaranaysa mar kasta hadana sidii 1990 oo kale ummadda Soomaaliland beelaha dhan bay soo qaatay inay maamul sameystaan way ka gudbeen carqalad kale jirto 2003 way ka gudbeen marka horta marar badan ayaa horta caaw laga gudbay carqaladda noocana waxaan kaloo xusaya oo mudan in iyadana la eego inagu caaw markasta sheegana wixii dhacay madaxweynaha Axmed Maxamed Silayo 2005 kii markii laga helay electionka 80 cod oo dispute ayaa laga helay dabadna wuu ogolaaday wuu qaatay arrintaasna waxay arrin leadership oo wanaagsan wadankana wax wanaagsan u tartay marka maanta laftigeeda waxa laga rabaa madaxweynaha inuu leadership role intuu qaato ummadan badbaadiyo u qabto doorashada kala saarinta deegaanka iyo ta madaxweynaha si daacad ugu qabto wadankana exit strategy fiican oo legacy uga tagta madaxweynaha sidii uu sameeyay 2005 kiiba inuu arrintan ugu dhaqaaqo calaw rajaynaya waayahay imika xisbigan waxa gudoomiye oo xisbiga talada haya waxa weeyaan Muuse Biixi oo u tartamaya shaqada madaxtinimada hadii sanadkii 2005 uu tanaasulay oo uu dulqaatay madaxweyne Axmed Maxamed Silayo oo laga badiyay ama laga adkaaday sidaas sheegtay 80 cod oo markaa muran uu ka jiray labadani waa kala duwan Muuse Biixi masleedahay tanaasulkaas oo kale ayaa laga fili karaa oo sameyn karaa hadiiba laga badiyo
wax aad u yar ama number yar oo waliba muran dhici karto in muran uu ku jiro markaa ma isleedahay muuse uu yeelan karayaa dulqaadkaas oo tanaasulkii silaa in la yimi oo kale ayuu la iman karaa horta dee beriga dhawaata waa tii kulmiga dhexdiisa oo ka qabsaday election waa kuwii la rabay in xisbiga dhexdiisa laga tartamo ina biixiyo ninkii la oran jiray xirsi iyo gruubkaasi cabdi abdahariyo ay ka tagaan iyagoo political dispute dhexdooda ka dhacay la diiday in la qabto electionka xisbiga dhexdiisa markaas wixii ka dhacay meeshaas waxaan dee dimuqraadiyadda ku habboonayn ay ahayd muddo dheer lagama jooga marka horta waad arkaysaa taariikhda gudoomiyaha xisbiga kulmiya weli sidiisii inay tahay laakiin dee horta waxa weeyaan mustaqbalka ciidina ma sheegi karto laakiin waxaan rajaynaynaa isaga laftigiisu inuu tusaale ku qaato madaxweynaha oo haddii electionka laga galo waddanka aanu carqalad gelin shacabka reer somaliland ma u bisil yihiin diyaar moo yihiin in doorasho dhacdo shacabka reer somaliland way u baahan yihiin waanay jecel yihiin doorasho dhacdo waanay jecel yihiin isbedel weyn inuu waddan ka dhaco laakiin waxaa hortaagan waa hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka weyn wagaag ugu dambeyntii aan kusoo gabagabino waraysigeennan Mr. Martin maxaad u jeedin lahayd dadka shacabka ee doonaya ee u hanweyn in ay doorashooyin dhacaan isbedelna u yimaado maxaad ku oran lahayd waxaan ku oran lahaa runtii talo ahaan waxa weeyaan doorashadu waxa weeyaan waa muhiim dimuqraadiyadduna waa muhiim waddankeena waxyaabaha kaliya ee lagu difaaci karaa ma aha qori waxa weeyaan waa codbixin marka codbixintu waxay muhiim u tahay maalgashiga nabadgelyada waddanka wada noolaanshaha waxay muhiim u tahay in la bedeli karo qofkii marka politicianka ahaa ee waddanka waxba u qaban la keeno cod cusub iyo ra'yi cusub iyo arrin cusub marka waxaan kula talinayaa dadka inay numberka kordhiyaan aad uga dadaalaan si ay cod wanaagsan u bixiyaan sanadkan inoo gasho taariikhda dhammaanteen waxaan kaloo ku talinayaa gobolada gaarka especially gobolka Sool iyo meesha la yiraahdo Sanaag labadaba inay diiwaangelinta aad uga qayb qaataan meelaha lagu muransan yahayna laftigooda si fiican xal looga gaaro وهاك هذه البرنامج صنتهاي مصطفى مارتن برنامج كني أيان أنت سيكوسو كوبيا برنامج كنا وقيب كها دولة البرنامج هذا إني قيمتها وحنسجار وإيجني دورشو إنك كوسو فول السومالان سنتك لبعض كون يطبقك دورشو كان هذا اللي عدونا أيه هرا لو باتشي سيدا عين وربعين تبى كلا سعنا إلى يوغيرانتي لبتشر وحاتنا الله هيا إن دورشدا قولها دجانك يلا كلا قاضو تن مدحوينها Somaliland ayaa hore soo gashay 3 doorasho oo kala dhacay sanadkii 2003 iyo tii ugu dambeysay oo dhacday 2010 tii ugu horeysay ayaa waxa ka qayb galay dad gaaraya 438 oo qof tii labaad ee 2005 ayaa iyana waxa ka qayb galay daawadayaal ilaa 670 oo qof tii ugu dambeysay ee jagada madaxtinimo loo ordayay ayaa waxa ay dhacday sanadkii 2010 waxaana ka qayb galay 538 oo qof dadka codka bixiya ayaa waxa lagu qiyaasaa reer Somaliland weeyaane 20% in ay yihiin tan kula keenay dambe daawadayaal barnaamijkan oo kale inta dib u kulmi doono waa Ali Xaraado mar kale idin leh sida iyo nabad geliyo aad iyo aad baa